wixii madaxweynuhu inoo sheegay baa beenoobay iyadoo aan la isla gaadhinba in heshiiskii halkan la keeno oo aanu la dariso mar labaad iyo mar saddexaad aqoonsiga Soomaaliland waanu soo dhaweynaynaa laakiin waxaanu diidaynaa dadkan lagu ciyaarayo marba khayriyada loo soo saarayo ee rajadooda iyo amalkooda iyo shucuurtooda iyo quluubtooda waxaan jirin inta loo sheego lagu ciyaarayo hadhowna mar dambena dawladda Itoobiya warkaa ka soo daba dirayso taasaanu u aragnaa wax qalada waxaan u arkaa subxaanallah waxaan u arkaa tiigini koran karaayo kaluun baan u arkaa dadka lugooyada ha laga daayo shacabkana quluubtooda iyo dareenkooda iyo waxa ay u hamuun qabaan oo aqoonsiya yaan qalbigooda lagaga ciyaarin waa waxa ugu weyn ee aanu jecelahay in dalkani helo haddii la helayo laakiin waxa aanu diidanahay in dadka iyo shacabka shucuurtooda iyo dareenkooda iyo doonistooda iyo quluubtooda lagu ciyaaro waxba kama jiraan Itoobiya inay aqoonsatay Soomaaliland sidaasi waxa warbaahinta u sheegay xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ku hadlayay afka xisbiga waxa uu gabiyahanba ka soo horjeestay heshiiskii dhawaan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya kaas oo ka dhacay magaalada caasimadda Addis Ababa xogayuhu waxa uu cadeymo soo hordhigay bulshada isagoo ku xaqiijinaya in aanay heshiiska ku jirin in Itoobiya ay aqoonsatay Soomaaliland dukaan yaalaba ma haddii xitaa deal la sameeyo waxay Soomaalidu tiraahdaa xaajada barbaa la hujaa oo huga la saaraa ama gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa lama yiraahdo qadiyadii aynu intaasoo dhan ku soo xiiqaynay ku soo dagaalamaynay cadaaladna waa wax la iibsado oo waanu iibsanay hadday dhacdaba taa uu sheegay oo uu sidaa u shaaciyo madaxweynuhu waxay dhalaysaa in Itoobiya inay noqoto dalka kaliya adduunka in aqoonsada aanay mid labeeyo iyo mid saddexeeya ku xigin waayo isagaaba yiri waanu kala iibsanay bad aynu boqolaal dawladood ka iibino inta la eegna ma hayno marka waxaan leeyahay hal laga daayo shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shucuurtooda iyo dareenkooda lagu ciyaarayo anagu haddaanu xisbiga wadani nahay Itoobiya mar walba waanu soo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa wixii dalka dan u ah waa dal aynu jaar nahay aynu walaalo nahay wada shaqayn inaga dhaxayso wax badan aynu wadaagno Itoobiya annagu ma diidanin aqoonsigana waa waxa ugu weyn ee aanu jecelahay in dalkani helo haddii la helayo laakiin waxa aanu diidanahay in dadka iyo shacabka shucuurtooda iyo dareenkooda iyo doonistooda iyo quluubtooda lagu ciyaaro intaasaan caawa halkan u soo fadhiistay waa ka warkiyo cadaani waa ka halka ku qoran ee aad wada aragteen haddii iminka Itoobiya war soo dayso oo ay tiraahdo waanu idin aqoonsanaynaa waanu soo dhaweynaynaa xisbiga ugu horeeya ee soo dhaweeya ayaanu noqonaynaa haddaba go'aankan hadalkayga malaa si khaladaad u fahantay hadalkayga waxbana maan durin mowqifka iyo afkii xisbigana waan ku hadlayaa mowqifka iyaguna waa kii ilaa aanu darisno waxa halkaa ka soo baxay eeg iminka waxaan u hadlay caawana shirka ay igu turtee kama tiraabeen nin baa yidhi waxaan caawa u hadlay wixii madaxweynuhu inoo sheegay baa beenoobay iyadoo aan la isla gaadhinba in heshiiskii halkan la keeno oo aanu la darisno waxa kaloo xusid mudan annagu haddaanu asxaabta mucaaradka nahay dawladda dee qayb baanu ka nahay asxaabta mucaaradka iyo golayaasha waa qayb ka mid ah dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland wax allaale wax tala ah iyo ogeysiis iyo waxaan heshiiskan la wado aanu ka ognahay ma jirto marka heshiiskana duri mayno oo oran mayno
waanu dur annagu haddaanu dowladda Ethiopia nahay waanu aqoonsanaynaa annagu waanu jecelahay in hadalkaasi ka soo baxo dowladda iyo xukuumadda Ethiopia ugu dambeyn waxa ku qoran halkan although Ethiopia's agreement to recognize Somaliland was raised repeatedly from Hargeysa inkastoo oo Hargeysa iyadoo loo jeedo dowladda Somaliland ay in badan ku dhawaaqday arrinta aqoonsiga there was no explanation or confirmation from Addis Ababa oo loo jeedo xukuumadda Ethiopia wax cadayna ama xaqiijina lagama hayo waa BBC waa warkii xalay warka inta la soo qaaday oo in yaro screenshot la soo qaaday iyo si khalad loo turjubay oo loo faafiyay annagu mar labaad iyo mar saddexaad aqoonsiga Somaliland waanu soo dhaweynaynaa laakiin waxaanu diidaynaa dadkan lagu ciyaarayo marba khayriyada loo soo saarayo ee rajadooda iyo amalkooda iyo shucuurtooda iyo quluubtooda waxaan jirin inta loo sheego lagu ciyaarayo hadhowna mar dambena dowladda Ethiopia warkaa ka soo daba dirayso taasaanu u aragnaa wax qalada positionka yagii ama mowqifka yagu waa kii aanu sii daynay maalintii ugu horeysay aanu niri wax walba oo aqoonsi lagu helayo waanu soo dhaweynaynaa aanu niri aanu darisno heshiiska madaxweynaha waxa looga fadhiyaa markuu yimaado memorandum of understanding ama isfahanka inuu nala wadaago oo aanu eegno oo aanu wixii markaa falcelina aanu markaa ka deemaan oran weydiiday hadalkayga haddaad dadku ila weyne dhageysanayaane waxaan idhi waxa ay hadalkiibay beenaysay oo ay madaxweynuhu yidhi Ethiopia iyaa ku ballan qaaday inay ina aqoonsato kumay ballan qaadin qoraalka ay soo qortay qoraalkii ugu dambeeyay waanu darsaynaa weligoodba way darsayeen anigu soo Ethiopia safiirka baan ahayn markaa safiirka ahaaba way darsayeen weligoodba way darsayeen laakiin ma way darsayeen baynu wax ku bixinaynaa waxaan u arkaa subhanallah waxaan u arkaa tiigini koron karaayo kaluun baan u arkaa dadka lugooyada ha laga daayo shacabkana quluubtooda iyo dareenkooda iyo waxa ay u hamuun qabaan oo aqoonsiya yaan qalbigooda lagaga ciyaarin intaas